maanta waxaynu ku bilaabaynaa marayka Gaza halkaasi oo lagu soo warramayo in maalintii saddexaad dagaalo culus ay ka socdaan xaafadda Jabaliya al-Balad ee waqooyiga marayka Gaza. Israa'iil ayaa docda kale waxay wadaa duqeymo cirka iyo dhulka ah oo ay ku hayso xaafadaha dhaca waqooyiga marayka Gaza. Militariga Israa'iil waxa uu suurtagali la sida wariyaasha ku sugan marayka Gaza ay soo sheegayaan inay ka soo gudbaan goobihii maalinimadii daraad ay soo galeen. waxaana lagu soo warramayaa in iska caabin xooggan ay kala kulmeen dagaalyahanada Falastiiniyiinta kuwaasi oo xalay soo bandhigay muuqaal laga sii daayay telefishinka Al Jazeera oo gantaaladii ciidanka Israa'iil ay soo rideen iyaga ku weeraraya laftigooda. mid ka mid ah gantaaladaasi oo ahaa bambaanooyinka culus ayaa waxay ka duubeen muuqaal iyagoo intay guri ku xireen ciidanka Israa'iilna ay galeen kadibna ay ku qarxiyeen. muuqaalka laga sii daayay telefishinka Al Jazeera oo Al-Qassam ay soo bandhigtay ayaa waxaa ka muuqanaya fariin ah hadiyadiiniba dib idinku celinayna oo ay loo jeedaan hubkii ay soo rideen oo dhici waayay in dib loogu adeegsanayo. haddaba xaaladda ugu dambaysa haatan waxaa ka mid ah in lagu soo warramayo dagaal ba'an inuu ka soconayo Jabaliya al-Balad. mas-uuliyiinta dhanka caafimaadka ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in meydadka dhowr qof wadooyinka laga soo ururiyey. waxaana la sheegay dadka qaarkiis inay sheegayaan inay jiraan meydad kale oo aan loo gudbi karin kuwaasi oo ay ugu wacan tahay dagaalka ciidanka Israa'iilkaas ay ka wadaan iyo shiishka la tooganayo qof kasta oo dhaqaaqa. xaafadda Baytalaahiya ayaa sidoo kale laga soo warinayaa in duqeyn Israa'iil ay ka geysatay dhanka furimaha hore ee dagaalka. Kataa'ib al-Qassam ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in dagaalyahankooda taangan nooca markaafaha ay ku gubeen Jabaliya iyagoo sheegaya in hawlgalkan uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Turkish Hawaz oo ku yaal dhanka galbeed ee Jabaliya. Al-Qassam ayaa sidoo kale waxay sheegeen in qaraxyo ay u geliyeen wadada gaari sidii ciidan Israa'iiliyiin ah. waxaana ay sheegeen in deegaanka Baytna hawlgalkan uu ka dhacay qasaarada halkaasi uu ka soo gaaray ciidanka Israa'iil. Ciisadin Al-Qassam sidoo kale waxay sheegeen in askari ka tirsan ciidanka Israa'iil masaafo ibrah ay ku toogteen deegaanka la yiraahdo Al-Tawam oo ku yaala dhanka waqooyiga galbeed ee magaalada Gaza waa bartamaha marayka Gaza. sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada halkaasi dabca inay ka qaadaan askarigaasi ay ugu rakabeen miinada loo yaqaano briqda taasi oo ay sheegeen in waxyeello ay u geysteen ciidankii dabcay ninkaas inay badbaadiyaan. ururka bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa war ay geestooda soo saareen waxa ay sheegeen in 10,000 oo Falastiiniyiin ah ay ku jiraan burburka dhismayaasha ku burburay halkii sano ee Israa'iil duqeynta ay ka waday. dhinaca kale war goorna wata ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa lagu sheegay in 8 xasuuq sida wasaaraddu ay sheegtay ciidanka Israa'iil ay geysteen 24 saac la soo dhaafay 56 qof ayaa geeriyootay 278 kale ayaa dhaawacantay sida wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan. inkastoo lagu soo warramayo duqeyntu in ay socoto haddana militariga Israa'iil waxaa la sheegayaa iska caabin xooggan inay kala kulmayaan dagaalyahanada Falastiiniyiinta sida wararka ugu dambeeya haatan ay tabinayso warbaahinta. qorshaan ku hayaaya haddaad qaaraddaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaalada Ria Money Transfer ayaa kuu suurtageliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdegga ah. ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank. faahfaahin dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran. fursad maalgashi oo dahabi ah tabta maalgelintaadu kugu taabagelayso haddaad toos u abaarto taas oo la xiriirto taawarkay dhisanayso Nairobi ka taagan maalgasho tabacaaga adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahaw dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas'uul ah. ma doonaysaa inaad guri ama hanti maguurta ah si fudud ugu yeelato magaalada Nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso? haddaba kaalay guri ama laba ka iibso Taasa Tower oo ah dhismo 15 dabaq ah. xafiiska shirkadda Taasa Properties waxa uu ku yaalaa dabaqa labaad ee dhismaha Sunny Plaza, Wangabala Road, Nairobi. wixii faahfaahin oo dheeraad ah kala xiriir emailka, telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah
ku hadal bilaash ah.